saacadihii la soo dhaafay waxaa isa soo tiraya wararka sheegaya in FBI-da Mareykanka ay xafiis ay ka furtay magaalada caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya kaasoo uu ballaarinayo howlgaladeeda ka dhanka shakhsiyaadka iyo sidoo kale dadka ay baadigoobayso. FBI-da ee Mareykanka ayaa dadaalo xoogan ugu jirta siday u soo qaban lahayd shakhsiyaad iyadoo ay u aragto inay galeen dambiyo waaweyn oo ka dhan ah Mareykanka kadibna isaga baxsadeen dalkaasi. FBI-da Mareykanka ayaa maalmihii la soo dhaafay dhawaan ay ahayd markii ay gacanta ku dhigeen Cabdikariim Iidle kaasoo magaalada Muqdisho ku noolaa sanadooyin badan isla markaana ay baadigoobaysay hay-adda FBI-da ee Mareykanka. Arrinka oo ay garab ay ku siisay sirdoonka NISA ee Soomaaliya ayaa lagu soo qabtay Cabdikariim Iidle kadib sanadooyin badan oo ku dhuumaaleysanayay caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya. Cabdikariim Iidle ayaa la sheegay inay qabteen kaamirooyinka iyo sidoo kale dabagalka kaamiradaha ee loogu talagalay caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya isla markaana isticmaalayso hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA kaasoo ay saamaxday in sirdoonka FBI-da Mareykanka oo kasoo kixitamay ee dalkaasi Mareykanka Washington ayna soo gaareen gudaha caasimadda ay saamaxday inay gacanta ku dhigaan Cabdikariim Iidle. Cabdikariim Iidle iyo sidoo kale laba shakhsi oo kale oo la socotay ayaa la xiray kadib markii saacadooyin badan la heesana la iska daayay laba qof oo kale oo la sheegay in si dhow ay ula socdeen Cabdikariim isla markaana ay ahaayeen shakhsiyaad isagoo ugu dhow. xogta qabashada Cabdikariim Iidle isla markaana FBI-da ay heleen sidoo kalena ay ku guuleysteen kadib sanadooyin badan tan iyo COVID-19 ayaa la sheegay inay sahashay Cabdikariim reerkiisa in laga helay markii ay sheegeen ama laga soo taxiyay inuu ku dhex nool yahay gudaha qaaradda Afrika. waxaase FBI-da Mareykanka u sahashay in la baadigoobo isla markaana la ogaado halka sida rasmiga ugu nool yahay. ugu dambeyntiina fursadan ay ka heshay ay ka faa'iideysatay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka taasoo u gacan gelisay Mareykanka. reerka uu ka dhashay Cabdikariim Iidle ayaa banaanbaxyo ka dhigaya gudaha caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya kaasoo ay ugu soo horjeedaan qabashada la qabtay Cabdikariim oo loo wareejiyay Mareykanka iyagoo sidoo kale dusha ka saaray hay-adda NISA iyo dowladda Soomaaliya. sidoo kalena mucaaradka ayaa eedo kulul u jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii ay wareejisay Cabdikariim Iidle. xiisadu faraha ayay kasii baxday iyadoo dhaqdhaqaaqyo culus ay ka jiraan oo ay wadaan mucaaradka iyo sidoo kale reerka Cabdikariim Iidle isla markaana lagu doonayo in lagu dhaleelo dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale hay-adda NISA kadib markii ay FBI-da Mareykanka u gacan geliyeen Cabdikariim Iidle. wararka ayaa isa soo taray sheegayay in FBI-da Mareykanka ay xafiis ay ka furatay gudaha caasimadda Muqdisho ka horse qabashada ayaa loo gudbiyay xirada xindaabka xalane oo safiirada caalamka safaaradahooda iyo sidoo kale howlgalada iyo midowga Yurub ay degan yihiin. xindaabka xalane ayay saheed halkii lagu haayay intaanu loo sii gudbinin dalkaasi ee Mareykanka. dhinaca kalena iyadoo ilaa hadda ma jiro war rasmi ah oo xaqiijina oo sheegaya in FBI-da Mareykanka ay xafiis ay ka furteen gudaha caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya laakiin wararka noocaas sheegaya ayaa isa soo taraya iyadoo saacadihii u dambeeyeen ay sheegayeen in FBI-da Mareykanka qorsheedu uu yahay in xafiis ay ka furato gudaha caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya kaasoo u sahlaya shakhsiyaadka ay baadigoobayso Soomaaliya ay tahay meel ay ku dhuumaaleysaan xitaa dadka qaarkii oo lagu sheegay burcadada waaweyn adduunka inay ku soo dhuumaaleysaan haddii ay dhacdose ay u saamaxaysaa FBI-da Mareykanka inay gacanta ay ku dhigaan. wixii faahfaahin kale ka soo kordha halkaa kala socdo maasileed.